Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada barnaamijkan. 72 sano jir u dhashay waddanka Nepal ee qaaradda Aasiya ayaa loo aqoonsaday ninka adduunka ugu gaaban 3 toddobaad kadib markii uu saxaafadda caalamka soo jiitay, isla markaana uu dadaal u galay sidii uu ku hanan lahaa darajadan. Ma ahan oo keliya inuu yahay ninka adduunka ugu gaaban, waxaa kale oo uu Chandra Bahadur Dangi uu noqday qofka ku nool adduunka ugu gaaban, kaas oo lagu diiwaangeliyo buugga waxyaabaha la yaabka leh ee dunida lagu qoro ee Guinness World Record. Muddo 57 sano ah markii ugu horeysay, Chandra oo magacan caanimada uu helay aan war iyo walaac toona u ahayn, ayaa isaga sugnaa tuulo ku taal buuraleyda baadiyaha ee dalka Nepal. Waxaase calaf u galay magacaasi kadib markii uu si kedis ah u arkeen kooxo cilmi-baarayaal ah oo raadraac ku sameynayay qabiilka Dangi ee ninkaasi uu ku dhashay ee deegaankaasi dega. Cilmi-baarayaasha ayaa la kulmay Chandra Bahadur Dangi, waxaana ay u sheegeen inuu isu soo sharaxo ugu gaabnaha adduunka, taasi uu u aqbalay ugu dambeyntii. Dhakhtar iyo sarkaal ka tirsan Guinness World Record ayaa tegay deegaankii uu ku noolaa Chandra ee u dhow degmada Chamba ee dalka Nepal, waxaana kadib ay u soo kaxeeyeen magaalada Kathmandu ee caasimadda Nepal, halkaasi oo lagu sameeyay cabbir laguna ogaaday in dhererkiisu yahay 21.5 inches ama 54.6 sentimitir, taas oo ka dhigan cabbirka waraaqda jaraa'idka, isla markaana loo caleemo saaray qofka nool ee adduunka ugu gaaban. Dangi wuxuu kala wareegay rikoodhka ugu gaabnaha adduunka Chandra Balawangi oo u dhashay waddanka Filibiin, oo dhererkiisu ahaa 23.4 inches ama 60 sentimitir, kaasi oo sanadkii hore isaguna kala wareegay darajadan. Chandra Bahadur Dangi oo ku labisan dhar hiddo dhaqameed, gaar ahaan koofi iyo dhar kale oo gacan ku samays ah, wuxuu muujiyay farxad iyo raynrayn oo ka soo muuqday warbaahinta adduunka sida telefishinada, laguna soo daabacay wargeysyada caalamka ugu waaweyn. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan noqdo ninka adduunka ugu gaaban, ayuu yiri Dangi, oo xusay inaanan weligiis wax daawo ah afkiisa saarin, inkastoo uu qabo xanuun ka dhashay qabowga dhulka miyiga ah ee uu ku nool yahay. Wuxuu sheegay mar kasta oo uu dareemo xanuun ama qandho inuu cabo biyo kulul, isla markaana ay ka jabto xumadii haysay 2 ilaa 3 maalmood. Si aad uma xanuunsado, waayo jirkeyga ayaa ah mid wanaagsan, ayuu ku dooday Dangi, oo gacanta ku haystay jab muufo xilli uu miiska cuntada u saaran tahay uu ku fadhiyay, maadaama aanu gaarin haddii uu kursi fadhiisto. Dangi weligiis kama tegin tuulada iyo deegaanka uu ku dhashay oo 217 mayl u jirta magaalada Kathmandu. Chandra Bahadur Dangi iyo qoyskiisa waxay dhaqdaan xoolo ahaan lo', iyo lo'da caadiga ah, waxaase uu ka qabay kadeed inuu soo celiyo oo ka daba ordo marka ay cararaan, balse wuxuu adeegsan jiray inuu u heeso ama uu ku qayliyo si uu u soo celiyo xoolahaasi marka ay ka yaacaan, sida uu sheegay Dulak Dangi oo ay ilmo adeero yihiin. Inkastoo qoyska Dangi ay ku qabeen dhibaato iyo hiif joogto ah gaabnidiisa, Chandra oo ciyaalku ka daba yaaci jireen mar kasta oo ay bannaanka ku arkaan, uguna yeeri jireen gaabow. Taas ayaan ku soo afmeeraynaa warbixintii gaabneed ayaan ka diyaarinay ugu gaabnaha dunida ee Chandra Bahadur Dangi.